dowladda Japan ayaa soo saartay baabuur laga dhex sameeyay masaajid kuwaasoo dhex wareegi doona magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. baabuurta masaajida ayaa dowladda Japan waxay ugu talagashay inay ku tukadaan dadka ka soo qayb galaya ciyaaraha Olombikada marka la gaaro sanada 2020. talaabadan ay qaaday dowladda Japan ayaa qayb ka diyaar garow ay ugu jirto martigelinta ciyaaraha Olombikada sanada 2020 kuwaasoo lagu qaban doono magaalada Tokyo ee caasimadda waddankaasi Japan. Yashuna Inawa oo ka mid ah saraakiisha u xilsaaran masaajida wareega ayaa warbaahinta u sheegay in arintani ay timid kadib markii ay ka cabsadeen inay yaraadaan masaajida waddankaasi ku yaala. Master Inawa ayaa intaasi ku daray in sidoo kale masaajidkan loogu talagalay inay ku tukadaan dadka martida ah si aysan waqti badan ugu bixin raadinta goobo ay ku cibaadaystaan intay ku sugan yihiin waddanka Japan. baabuurtan ayaa leh qaybo lagu weysiisto oo markasta ay diyaar ku yihiin biyihii weysada, waxaana hadda socota tijaabada lagu samaynayo qaybaha kala duwan ee baabuurtan masaajida laga dul sameeyay. baabuurtan ayaa xukuumadda Tokyo waxay ugu talagashay in mar kasta oo aad u baahato aadesho, waxayna yaalaan goob kasta ay ka fog yihiin masaajida iyo hareeraha wadooyinka. dadka muslimiinta ee ku nool dalka Japan ayaa dhankooda bogaadiyay talaabadan cusub ee ay qaaday dowladda Japan iyo sida ay uga go'an tahay martiqaadka muslimiinta dalkeeda ku soo food leh marka la gaaro sanada 2020 ee xilliga loo madalsan yahay in dalkaasi uu martigeliyo ciyaaraha Olombikada.